السلام عليكم صاحبي halkani waa caasimada ku soo dhawaada qaybtii afaraad ee qisadii jacayl ee taxanayno aheyd Saacid iyo Sucaad balse intaan u gudagelin muuqaalka waxaan ka codsanayaa daawada inaad like saarto muuqaalka haddii aad ku cusub tahay nagu soo biir oo subscribe taabo furgan balelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeen isla markaa aynu soo gelino waa xilligii balanta Sucaad ayaa isdiyaarisay Saacid ayaa soo wacay isagoo u sheegaya in uu soo socdo durba iyadoo diyaar ah ayuu u yimid wayna israaceen sheeko ayay sii wateen kadibna goobtii ay rabeen ayay soo gaareen waqti markii la wada joogay ayay Sucaad dhahday hooyo ayaa isoo wacaysa waa inaan tagaa guriga Saacid ayaa ku yiri xabiibti goorma xor ii noqonaysa markaasi ayay meesha ka soo baxeen Sucaad markay guriga timid ayay seexatay subaxii markay ka soo kacday sidii caadada ahayd Saacid ayay la hadashay waqti ayayna wada qaateen waa maalin jimco ah Sucaad waxay rabtaa in ay banaanka aado oo shopping doonato markay casir noqotay ayay isku diyaarisay in ay baxdo waxa ayna balansan yihiin gabar saaxiibteed ah markii ayay Saacid u sheegtay inay banaanka aadayso mar walba oo ay baxayso ilaa ay Saacid u sheegto ma baxdo sidii ayayna ku baxday Sucaad markay guriga ka sii baxaysay may raacin gaarigii gurigooda ee taxi ayay raacday waxaana arkayay wiilashii mid ka mid ah oo meesha socday markiiba wuxuu u wacay kuwii kale isagoo u sheegay inuu Sucaad arkay iyadoo kaligeed ah iyo meesha uu ku arkay wuxuuna ku yiri waa Janice soo baxa aniga ayaa daba socdo oo idinku hagaya hadba meeshay marayso wiilkii sidoo saaxiibiis u soo hagayay kadib way soo gaareen goobtay Sucaad joogtay Sucaad waxay u sii socotay meeshii ay ku ballameen gabadhii saaxiibteed ahayd iyadoo sii socota ayay dhaxda ka qabteen shantii wiil kadib afka intay qabteen oo ay suuxiyeen ayay la carareen markay ka xaajo dhameysteen ayay isaga tageen hal saac kadib ayaa miirkeedii u soo noqday wayna dareentay in wax lagu sameeyay halkii ayay oohin iyo qaylo qabsatay haddana way aamustay oo waxay istiri dadka yaanay ku arkin oo waa xilli fiid ah halkii ayay dharkeeda ku xiratay mobilkeedii ayay fiirisay waxa saaran wicitaanka saaxiibteed oo dhowr jeer soo wacday ileen way ballansanaayeen kadib ayay ku celisay markaasi ayay ku tiri xabiibti iga raali noqo hawl yar ayaan ku mashquulay waa inuu mar kale halkii ayay taxi qabsatay oo isbitaalkii ayay aaday gabar dhakhtarad ah ayay u tagtay halkii ayaa la baaray waxayna ogaatay inay halkaasi ku weysay gabarnimadeedii Sucaad iyadoo xaaladeeda fiicneen ayay guriga tagtay iyadoo cidna la hadlin ayay qolkeeda gashay iyadoo isweydiisay wiilashani yay ahaayeen bal maxay sidaani kuugu galeen bas maanta ayaa farxad iyo nolol kuugu dambaysa iyadoo isla hadlaysa ayuu Saacid soo wacay balse kama aysan qaban dhowr jeer ayuu ku soo celiyay laakiin kamay qaban Saacid ayaa yaabay maxay kaaga qaban laadahay message ayuu u soo diray isagoo dhahayo xabiibti maxaa jira ee iga qaban laadahay isoo wac Sucaad maanta waxaas uma jeedo oo teeda ayaa haysata waxayna go'aan ku gaartay inay cidna u sheegeen si ay reerkeeda iyo nafteeda ceeb ugu ilaaliso iyadoo isleh Saacid noloshiisa ka fogow waayo gabar ma tihid iyo hadallo kale oo qiiro leh oo waxay diidaysaa inuu Saacid ogaado arintan nolosheedii murug ayay noqotay quruxdii iyo dhalaalkii ayaa isbedelay ileen waa qof hurdo la'aan iyo oohin la diris ah oo waxa la yaabtay hooyadeed markay qolka ka soo bixi weyday markaasi ayay ku garaacday albaabka iyadoo ku leh Sucaad hooyo maxaa ilaa xalay qolka ku dhex dhigay Sucaad ayaa istiri yaa laga dareemin waxa jira kadibna wajiga inta ay soo dhaqatay ayay soo baxday hooyadii ayaa ku tiri miyaad xanuunsanaysaa jawigaagu ma fiicne Sucaad ayaa tiri haa hooyo ilaa xalay madaxa ayaa i xanuunayay maanta xataa jaamacaddii ma tagin Sucaad waxay is leedahay ha is dareensiinin waxa jira qof caadi ah ayay iska dhigtay Saacid oo yaaban ayaa soo wacay markaasi ayay ka qabatay isagoo leh xabiibti maxaad iga qaban weyday mobilka markaasi ayay ku tiri waan yara xanuunsanayay ee iga raali noqo kolkaas ayuu ku yiri wax walba waad ii sheegi jirtee inuu xanuun ku hayo maxaad iigu sheegi weyday markaas ayay ku tiri hadalba ma karaynin ee hadda way dhacday iga raali noqo Saacid markaasi ayuu ku yiri hadda sidee tahay ma ogtahay sidaan kaaga walwalay Sucaad hadalba maanta uma jeedo markaasi ayay ku tiri ilaa hadda xaaladeyda ma fiicna
ee aniga ayaa kula soo hadlayo xabiibi. Sucaad markay moobilka dhigtay halkii ay oohin qabsatay iyadoo ka murugsan waxaanay dhacay iyo mustaqbalka ay ka lahayd Saciid iyo waxa dhici doona. Sucaad nolosha ayaa ciriiri ku noqotay, way dhamaatay farxaddii. Jaamacadda markay ka timaado qolkeeda ayay gashaa, cidna lama hadasho. Reerkii oo dhan ayaa la yaabay oo waxa isleeyihiin maxaa ku dhacay gabadha oo ay la aamusan tahay. La soco qaybta xigta hadduu Rabbi dhaho daawade. Haddii aad muuqaalkani ka heshay fadlan like inoo saar muuqaalka. haddii aad ku cusub tahayna nagu soo biir oo taabo subscribe furo gambaleelka si aad u hesho muuqaalada kale aan soo geli doono isla marka aynu soo gelino. haddii aad hore noola joogtayna ku mahadsanid. tan intaan kulmayno muuqaalkani mid ka xiga nabadgelyo.